الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم sidii loo hagaajin lahaa saxwadan islaamiga ah ee mubaarak ah waxaa dhici karta in ay mawduuc khaas tahay oo mawduuc caam uunan ahayn waa dhici karta oo daa'ifada ka faa'iideysan karta ama daa'ifada loogu talagalay ay tahay daa'ifo xadidan waa suurtagal laakiin kullayba dadku inay ogaadaan abnaa saxwa iyo wagayrihim aragtiyadaas waxa moodaa inay tahay daruuri oo waxay u khidmaynaysaa mashruuca islaamiga ah ee guud ayay u khidmaynaysaa canaasir dhowra ayay muxaadaradan ka kooban tahay marka koowaad waxa weeye maxay tahay saxwadu ta dhowra ayay muxaadaradan ka kooban tahay marka koowaad waxa weeye maxay tahay saxwadu taariikhdeedii maxay tahay maxay injaazaad qabatay maxaa dhaliila ah oo ay leedahay iyo sidii arrimaha loo turxaan bixin lahaa inahaasay ku wareegaysaa muxaadaradu markii kelmadan saxwada la yiraahdo kelmad carabi ah waxa weeye qofku baraarugaasina waxa ka horeeyay hurdo ayaa ka horeysay caalam islaamiga taariikh dheer bay ahayd oo muxaadaro kala leh ama waqti kala leh ama baxthi kala leh waxay soo martay maraaxil kala duwan oo marna kor la aadahayay marna hoos leh waxay soo martay maraaxil kala duwan oo marna kor la aadahayay marna hoos la aadahayay ayay soo martay watilka hiya sunnatu alxayaa watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas awqaad waxaa la soo maray adag awqaad fiicanna waa la soo maray waxaa dhici karta dadku inta hadda joogta inay u qabaan dadka muslimiinta ahi dhibaatooyin badan inayna soo arkin waxaa ka horeysay oo dheer oo wakhti dheer ahaa xuruub saliibiya oo wakhti badan qaatay oo baytulmaqdis iyo shaam iyo meelo ka mida caalam islaami la qabsaday oo quraabat wax 100 sano ku dhow masjid al-aqsa iyo baytulmaqdis ay ku jirtay gacanta gaalada muslimiinta waxaa soo maray fatradii tatarka dambeeya waxay u qaadan doonaan inaan been sheegayno musiibo la midihii ma soo marin adduunka ilaa ilaahay khalqay una malaynayno masiixi dajjaalka iyo yaajuuj iyo maajuuj mooye wax la mid inay soo mari doonaan halkaas ayay ka cabirayeen dhibaatadii jirtay iyo dadka muslimiinta ahaa hazimada ku dhacday laakiin mar walbaba waa laga soo kacay waa laga soo doogsanayay dadka muslimiinta ahina waxa weeye waa ummad xayi ah waana ummad ilaahay u ballan qaaday in ay guul hesho in allaha zawali al-ard fara'aytu mashaariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablughu ma zuya li ummadatan sayablughu hada ad-din ma balagha al-layl wan-nahar ummadan ummad mansuura weeye wal aqibatu lil muttaqin
arrimahaasi marka sayabluqu hada ad-diinu ma balagha al-layl wan-nahar ummadan ummad mansuura weeye wal aaqibatu lil muttaqiin arrimahaasi marka asbaabta guusha lagu helo iyo asbaabta jabka keenta labaduba waa wax la yaqaan oo hadii la dabaqana tanasrigana la helayo hadii kalena ay noqonayso mid jabka sunanka rabbaanigahi la tuhabi ahadan qofna uma hiiliso waxa weeye qof waliba waa inuu ku dhaqmaa oo ku socdaa wifqa hadhihi sunnah arrimahaasi waa arrimo iska macruufa caalam islaami wuxuu soo maraba waxa uu jiri jiray haykal isku haya oo la oran jiray al-khilaafa al-islaamiyya khilaafadaas islaamiga ah oo isku haysay caalam islaami way dhacday asbaabaha ay ku dhacday waa asbaaba macruufa islaamiyya khilaafadaas islaamiga ah oo isku haysay caalam islaami way dhacday asbaabaha ay ku dhacday waa asbaaba macruufa ama la sheegi karo ama waqti kala qaadan karta laakiin waa jabtay jabkaas iyo dadka muslimiinta qaybsiga la qaybsaday oo mustacmarku uu qaybsaday wixii ka dambeeyay caalam islaami wuxuu galay marxalo kale aad iyo aad baa looga murugooday dhicidii ay dhacday khilaafada islaamiga shawqi ragii mucaasireeyay oo la joogay buu ahaa waqtigaas al-misru walihatun الهند والهة ومصر حزينة تبكي عليك بمدمع صحاح والشام تسأل والعراق وفارس أمحى من الأرض الخلافة ماحي حقيقة شوقي وحقيقة دير وآد مروق بنا كم وقته عالم إسلامي لكن عالم إسلامي عامة لم نبت قرين أرنتاس سي مباشرة يسي غير مباشرة إنه waxaynu kamid ahayn juz kamid caalamka islaamka wixii ummadda ku dhacay baa inagu dhacay bal inagu waa uu tugtuu yareen oo waxyaalo badan oo ama ujma ah ama jahli ah ama ba maxaan ku iraahdaa maraakis islaamiyo caan ah oo ayna jirin inagu waa u sii maaratay nugleyn isticmaalkii tirada badnaa oo ina qaybsaday ayaa ina qaybsaday saxwada anigu aan ka hadlahayo waxa weeye waa saxwadii Soomaaliya saxwada caalam islaami ka bilaabatay taariikh kale bay leedahay saxwadaasna waxaan ka hadlahayaa waxa anigu aan u soo goobjoog ahaa oo u soo joogay oo aan oran karo waxa anigu aan u soo goobjoog ahaa oo u soo joogay oo aan oran karo awaailkii sabciinaadka iyo wixii ka dambeeyay xoogeedu intaas u ah runtii waa dareemi kartaan culimada Soomaalidu dadkii wax qabtay bay ahaayeen oo gaalada la dirirkii iyo kacdoonkii ka hor imaanayay ayaga hormood ka ahaa in wadanka laga saaro gaaladana qayb bay ka qaateen oo aan maxaan ku rahdaa aan la inkiri karin gaalada in la muqaataceeyo oo aan wax calaaqaadiya ina dhexmarin ayaga iyo muslimiinta markaas wadanka joogtay way ka shaqeeyeen taariikh dheer bay lahayd taariikhdaasi waqtigeeda iyo waxay yeelan doontaa maxaan ku rahdaa goobteeda dambe waxaan ula jeedaa anigu saxwadii nidaamsanayd oo bilaabatay taariikh dheer bay lahayd taariikhdaasi waqtigeeda iyo waxay yeelan doontaa maxaan ku rahdaa goobteeda dambe waxaan ula jeedaa anigu saxwadii nidaamsanayd oo bilaabatay 70aadkii saxwadaas waxay ku soo aaday ayadoo wadanka thawrad ishtiraaki ah oo anti wadaagii ay ka bilatay ayay ku soo aaday ayada oo shariicada islaamku nolosha dadka inay qayb ka qaadato aan loo ogolayn ayadoo dadku arkayaan ninka wadaadka ah inuu yahay nin miskiin ah oo tuugsada oo inuu dadka qardhaas u gooyo ama cashar iyo tahriil u tufo mooyee aan wax weyn oo kale lagu halaysan saasoo kale aragti noocaas oo kale ah ayaa markaa jirtay bal waxa ka darnaa
hanti wadaag wuxuu keenay markii la qaatay ishtiraakiyada cilmiga ku dhisan saynahay oo ilaahay ma jiro lagu dhiirado oo dad badan fagaara uga hadlaan oo meelaha iskuulada laga hadlo oo ay noqoto waxa aan laga xishoonayn iska daa shariicada islaamka iyo jaaifooyinka loo geysanayo iyo waxyaalaha muxakimaadka ah oo islaamku uu leeyahay dhaawac loo geysanayo taas xadith wala xaraj wax laga sheekayn karo ma ahayn arinkii noocaas ahaa ayaa waxa bilaabatay saxwo baraarug ah oo imtidaad u ah caalam islaami wixii markaa ka socday runtii marxaladaas waxaa la oran karaa qofkii joogay ama qofkii markaa garanayay ayaa garanaya aad bay u adkay xijaab ma jirin dadka hadda maanta Soomaalidu wada xijaaban oo wada niqaaban u jeeda ma jirin yar ahoo banaadiri ah oo goboladaas jooga mooyee wax xijaab qaata wadanka kama jirin waxa ajaa'ib ahayd saxwadaasi inay isku mashquulin jirtay ilaahay waa jira oo dood ka gali jirtay kutubii la akhrin jiray waxa kamid ahaa oo saxwadu markaas ay kilkisha gashan jireen kitaab la yiraahdo Allah yatajalla fi asr al-ilm hada in la helo in kala umaleyn maayo sodonin oo niman fiizaayina oo kiimistiyina oo waxay ka qoreen ayaa waxay lahaayeen ilaahay baa jira kitaabkaasi waa ku faraxsanayn inaanu burhaanino ilaahay inuu jiro oo dadka u akhrino waxa kamid ahaa kitaab kale oo la oran jiray al-ilmu yad'u ila al-iimaan oo qoray nin maxaan ku raahdaa isaguna akaademiyada culumta ee Mareykanka markaa madax ka ahaa isna kitaabada aanu aad u akhrino ayuu kamid ahaa kitaabada aanu aad u akhrino ayuu kamid ahaa waxyaalaha la naqdin jiray oo markaas caanka waxa kamid ahaa nadariyad Darwin oo oranahay insaanka wuxuu ka yimid qird iyo ma kama imaan doodaas iyo wixii la halmaala ayaa socday hadii karta da'yarta maanta joogta oo aragtay dadkii wada xijaaban iyo dadkii oo masaajidda ku jira iyo shariicada islaamka oo macna leh oo dadku soo istaagayo macna way leedahay yaani iyo waqtigaas in aynan isticaabi karin oo ay sheeka ku tahay dhici karta waxaan hada dadka muslimiinta ahi waa muuqdaan laakiin waagaas ninku wadaad waxyaana la isku caayo bay kamid ahay waxyaana la isku caayo oo qofka la yiraahdo ninka wadaad ninku caayay oo wax ku dhimay oo kale ayaa u haysatay inaad la dirirtid baasurta wadaad waxyaana la isku caayo bay kamid ahay waxyaana la isku caayo oo qofka la yiraahdo ninka wadaad ninku caayay oo wax ku dhimay oo kale ayaa u haysatay inaad la dirirtid baasurta galahay horta waxa la soo maray waxaas kamid ah dhalinyarada in looga sheekeeyo arimahaasi waxay tusinaysaa juhdiga la qabtay iyo waxa taxqiiqsamay iyo ilaahay qadartiis waxa la gaaray inay wax muhiim yihiin oo ilaahay looga mahad celiyo wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith inay ogaadaan juhdi jabbaar ah in la qabtay dawlad dhisan oo boolis leh oo military leh oo wasaa'isheedii leh ayuu meeriyaha kaliya haysata oo illa tartami karta inay jirin nin wadaado oo masaajid wax ka akhrinaya ama shabaab dhalinyaro ah oo aqoontoodu maxduud tahay inay u beer dhigaan oo ay soo saaraan saxwadatan ama ku saabsan tawxiid al-asmaa wa sifaat ama ku saabsan maxaan ku iraahdaa bid'a oo la saxay oo tiro badan ayaa jira illa saxo wax sahlan ma ahayn dad culimo ah ba difaacayay oo ummadu ay culimo ahaan u ictibaarsanayd oo aqoon waxun kalaha oo arintaasi ku mamana maamulka jirana u hiilinayay arinkaasi waxay ahayd arin la qabtay oo aan leeyahay wax weyn baa ka hirgalay waxyaabihii la qabtay waxa kamid ahaa in la nashriyo culumta kitaabka iyo sunnada tafaasiirtu wadanka kuma badnayn waxa la akhrin jiray jalaalayn bisha ramadaan kaliya tafsiir lama akhrin jirin in tafsiir la akhriyo oo quraanku noqdo kitaabu hidaayah ee uu noqon kitaab dadka lagu akhriyo markay dhintaan ama markay jiran yihiin ay
noqoto kitaab ina hada alqur'aana yahdi lilatii kan uu yahay qur'aan loo soo dejiyey litukhrija annaasa min adulumaati ila annuur inuu yahay kitaab noocaasa ayaa dadkii ka dhacdhacay sunnada waxaan u malaynahayaa kutubi sunna waxa laga akhrin jiray wax yar bay ahaayeen laakiin waxaa la keenay in bukhaari la akhriyo muslim la akhriyo sunanta la akhriyo kutub tiro badan buluuqul maraamka la akhriyo wama ila dalik ayaa bilaabatay waxaa la isku dayay oo wax weyn laga qabtay shubahdii cilmaaniyada iyo laadiiniyiinta in laga hortago oo lala diriro oo la ifhaamiyo oo saaxada lagula tartamo ayaa iyada laftigeeda waxyaalihii lagu guulaystay bay ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd waxyaalihii lagu guulaystay ummadda in loo soo celiyo inay diinteeda ku kalsoonaato oo shareecadeedu ay tahay shareeco ka heer sarraysa sharaa'ic innaas ay waajib ku tahay inay qaataan ummadda inay diinteeda ku kalsoonaato oo shareecadeedu ay tahay shareeco ka heer sarraysa sharaa'ic innaas ay waajib ku tahay inay qaataan ummadda cizadaas iyo haybadaas iyo karaamadaasi inay soo noqoto qofku fiqo helo oo inhizaamiyada laga baxo waxyaalaha soo noqday ka mid tahay nin kastoo Soomaali ah oo warlords ah ama jabhad ah markuu hadlahayo sharciga islaamka la isku dabaqo ayuu oranayaa ama bismillaahir rahmaanir rahiim buu ka bilaabaya cayaar kuma imaan bismillaahir rahmaanir bay oran jireen markii dawladdu jirtay laakiin inay bismillaahir rahmaanir rahiim karaan wax cayaar ku yimid ma ahayn waxa ka mid ahaa fadaa'ishii iyo akhlaaqdii tirada badnayd iyo gabdhihii xijaabka loo xiray ayaa ka mid ahaa waxyaalihii la qabtay waxaa ka mid ahaa madaaris taxfiid quraanka ah oo meel walba gaartay oo meel walba ku intishaartay oo tajwiid leh oo adaab muayana caruurta la barayo mid ahaa waxyaalihii la qabtay waxaa ka mid ahaa madaaris taxfiid quraanka ah oo meel walba gaartay oo meel walba ku intishaartay oo tajwiid leh oo adaab muayana caruurta la barayo iyo wixii la halmaala waxaad arkaysaa mararka qaarkood waxyaalo lagu farxa ah inaad baadiye gabar ari la joogto oo xijaaban aad aragtid ari raacis ama dhaan wadata arintaas markii Soomaali jabtay oo Soomaali inkaari ku dhacday wixii Soomaali u badbaaday inta saxwadaasi badbaadisay wixii Soomaali u badbaaday hadii ay u badbaadeen waa inta ay saxwadaasi badbaadisay iskoolay fureed ayaga u hormaray iskoolada furaan ayaga u hormaray in ay maxaan ku iraahdaa wax un adeega bulshada wax ka qabtaan ayaga unba u hormaray wax un nidaam ah meelaha qaarkood iyo meel kasta oo jiraba ayagu inay bilaabaan waa saxwadaas ayaga ayaa bilaabay dadkii la qaaday oo tirada badnaa oo la geeyay cari gaalo way dhici kartay inay dadkaasi inxiraafaan inay maraakiz islaamiya u qabtaan oo meeshii ay kaga daba tagaan oo dacwadii sidii loo wado oo dadka wuxuu laga caymiyo ayaa bilaabatay Soomaali inta ka dhaqdhaqaaqaysa ama inta muuqata ama inta u baaqi noqotay waxa la oran karaa ayada oo aan faan ahayn ayada oo aan tabajuh iyo almutashabbi'u bima lam yu'ta aynan ahayn waxa la oran karaa saxwada saxwadaasi marka ummadda fadli bay ku leedahay ama ha ogaato abayeen ogaanine ummadda Soomaaliyeed fadli bay ku leedahay ama ha ogaato abayeen ogaanine saxwada marka noocaasa wax maakhid ah ama daliil ah ma leedahay ha daliil bay leedahay maxaa keenay daliishaasi waa amal bashari ah adci karaaba ka dhaca ama si fardi ha uga dhaceen ama si guud ha uga dhaceen akhtaa bay leedahay oo kow iyo laba iyo saddex iyo ka badan ayay leedahay akhbaarta noocaasa oo saxwadu ay leedahay ama gaadiska ah oo bini aadanimada ah ama han noqoto wixii la halmaale ya awla u ah inay sheegaan ya awla u ah inay ka hadlaan waxa ka u ah dadkii saxwadatan markaas wax sababa ku lahaa baa loo baahan inay ka hadlaan waxa kale oo muhiim ah in la ogaado nasiixada iyo in la isku naseexayo ila nasiixadu maxay ku imaanaysaa qofku wax khaldan oo ku jiro inaad kala hadashid weeyna nasiixadu waa noocaas waa mabda weyn oo islaamiga weey
مبدأ وين وإسلامي وين. كمدها حديث النبي صلى الله وسلامه عليه حديث كي تميم بن أوس الداري الدين النصيحة 3 دين تبوى النصيحة. ابن رجب الحنبلي شرح سوي حسون نقليي حديث كان إنه يهي أحد أرباع الدين أفرميلو وميل إنه يهي أي سون نقلي وضد كسون نقلي قال كنا وحنا وكبر يهي انتعص waxaa soo gelaya maqaasid badan baa soo gelaysa diin nasiixa. wuxuu yiri Abu Hatim al-Busti ibn Hibban الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة. ninka caaqilka waxa ku waajib ah inuu muslimiinta u nasiixeeyo وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل معا. inuu ummadda khiyaanin ama qalbiha ahaato ama oraha ahaato ama falha ahaato. إذ أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشترط على من بايعه من أصحابه النصح لكل مسلم. نبي وقف الله قفكي بيعلق له وحكو شرط لها أي أمضى إنه النصيحي إنه ناصح النغضه أي كل بلمهي. وحكم ذا حديث وإشارها يا شيخ وحديث جرير بن عبد الله البجلي ولي النبي وحن بيعق لقلي النصح لكل مسلم. ninkastoo muslim inuu nasiixayo wadaad wuxuu oran jiray kana ila baa'a aw ishtara ama inna alladhi akhadnahu minka ahabbu ilayna mimma a'taynak fakhtar. waxaanu ku siinay iyo waxaanu ka qaadanay baanu jecelnahay sidana la fiican marka hadda khiyaar bad leedahay. yani waxa weeye min kamaali nusxihi inuu ninka wax la beectamaya uu khiyaar geliyo. صادرتي المركة دلده ugu muhiimsan oo maxaan ku iraahdaa aan haysano waxa kamid ah adiladaasi almu'minu mir'atu akhihi hadith sahiha weeye qofka mu'minka ah iyo qofka kale walaalkiisa wuxuu yahay muraayada maxaa lagu qabtaa waa la isku fiiriyaa meeshii wasakh kaaga taal meeshii baqbaqi kaaga yaal hadii maradu si xun kugu xiran tahay si aad isku saxadid bad muraada isku fiirinaysa. marka saadarteed marka waxa weeye waxyaalahaas waxay tusinayaan in dadka muslimiinta ay saxaan. nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wa man ashara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rushd fi ghayrihi faqad khana. qofkii uu ishaaro qof walaalkiisa arin uu og yahay wanaagu inuu meel kale yahay ninkaas waa khaa'inay. ummadda waxa rabaa wixii markaasi danteedu ku jiro in loo sheego oo loo cadeeyo si ay tubta saxda u qaadato. wuxuu oran jiray Abu Hasan al-Nadwi shababku an-Nadawi bi akhriyaan laakiin an-Nadwi weeye. Abu Hasan al-Nadwi wuxuu oran jiray waa ninkaas kale maada khasira al-aalam iyo kutubta dhowrka ah ummadatan waxa ka badbaadiyay inxiraafka kulliga ah oo ummadii hore ku dhaceen waa nasiixada. nasiixada ayaa ka badbaadisay runtiis. tawa nuqto labaad waxa weeye manhajka kan naqdiga daatiga ah qofku isagu inuu isnaqdiyo ah waa manhaj islaami ah islaamkuna caan ku yahay waxaana ka tarjumaysa shaciirada loo yaqaano al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. shaciiradaasi waa shaciiro weyn waxa jiri jiray waagi hore caalam islaamiga wax la yiraahdo muhtasib nin la yiraahdo ama xisbo wax la yiraahdo dad isxil saara oo shaciiro weyn waxa jiri jiray waagi hore caalam islaamiga wax la yiraahdo muhtasib nin la yiraahdo ama xisbo wax la yiraahdo dad isxil saara oo ummadda u naseexeeya waxay u naseexaynayaan akhlaaqda waxay u naseexaynayaan inay tagaan meelaha wax lagu gabo oo ay yiraahdaan miisaanka waa khaldan yahay ama qish baa suubisay wax walba oo ummaddu u baahan tahay oo dani ku jirto ninkaas muhtasibka ah ayaa qaban jiray. hay-adahaas ay jiri jiray. waxa dhici karta in la isweydiiyo oo la yiraahdo war arinta nasiixada ah ama naqdiga daatiga ah muusir noqdo oo dadka saxwada shaqada kulihi kaliya ma ka wada hadlaan maxaa arintan loo ishaacaynaya oo looga hadlaya. horta wax kasto muuqdo kor waayeel waa wada indho
fulina xanti ma mooga Soomaalida ku mahmaada fulina xanti ma mooga Soomaalida ku mahmaada dadku iska wada warqabaan waan la og yahay manhajkaasina waxa ka soo horjeeda sidii quraanku u dhaqmay dadka muslimiinta ah markay khalad ku dhacaan quraanka saxayay quraanka ayaa saxayay ulaada waqtiya khatar oo dagaal lagu jiro ayaa waxa soo dagahayay tasxiixaas waxa kamid ahaa qisadii Uhud markii muslimiintu ay yiraahdeen anna hada waxa nagu dhacay maxaa sababta maxaa waxaan keenay qul huwa min indi anfusikum iyo marka la leeyahay fa bima kasabat aydiikum waxa ay kasbateen way in jabkaan yimaado khilaafkii la khilaafay nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi ayaa keenay arintaasi marka waa inaad ogaataan oo sax ku tala gasha marka quraankaasi soo dagahayo nabigu waa dhaawac sallallahu alayhi wasallam alayhi jabiyay dhaawac baa gaaray hatta fadhigu ku tukanay nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi waxa soo dagay qisadii Hunayn markii saxaabadu carartay oo nabiga uga tagtay meesha ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وحي سودكتي وقتي يبعث وحل سحايي ضدك مسلمين تأه وحل سحايي وحي خطأه ويكون دعاه أفعاش دعبه وقد على ضدك المسلمين تأه موغضه لقى مسلمين مركي خالد بن وليد رضي الله عنه ولايي نمنكي نبي وحي اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد إلهي أنه وحن كبري أهي وحي خالد أسوبيي خالد لمنعن خالد أسوبيي خالد لمنعن خالد ينحو الله هنا سيف الله المسلول بوها خالد إلا الدايه أو أن لدبين أيا لقاه لي لكن وحان خلطك هو دعي in dadka muslimiinta ah ayna wada qaadin ee daairadiisi xal loo yeelo oo manhajkaas la taqriiriyo oo macrakadii akhlaaqiga ahayd oo lagu jiray aan lagu jabin arinkaasi wuxuu arin muhiim ah sidoo kale markii Usaama ninka dilay dagaalka ku dilay waxa la yiri kayfa tasna'u bi la ilaha illa Allah sidoo ku suubanaysa ninka kan waxa way dagaal baa la isku keenay dagaal baa lagu jiraa nin gaal u ahaa waxa weeye markii uu kuleyba uu wax ku soo dhawaadeen ayuu hadalkaas ku hadaaqay arintaas waa la saxay lamana qarina si calan ah ayaa loo saxay marka in dadka muslimiinta ay ayagu isa saxaan oo aynan kaga imaanin meel kale oo dabadeedna umadu ay inxiraaf ku dhacdo oo inta wax la qaban karo wax la sixi karo oo la oran karo waxa sax weey iyo waxa waa khalad umadaasi umad nool weey umadaasi waa umad xayya waad aragteen umadaha adduunka ka jira ee markii balad dhacdo ama mushkilad dhacdo gudiya la saara hay'adaha la saara waxa sababta waxaan ku dhaceen hala sheego waxyaalo u dambeeyay waad ogtihiin dagaalkii Lubnaan Israa'iiliyiintu waxay saareen gudi dhan oo la yiri taqriir soo diyaariya waxa Mareykanku saaray gudi dhan oo ka hadlaya arinta Ciraaq iyo mushkiladeeda isla looga bixi karaa iyo khiyaaraadka furan ayay soo bandhigeen arrimahaas waxay ku tusinayaan ummadaas wax inay rabto inay isbadbaadiso arrinkan muslimiinta ayaa ugu horeeyay waxa loo baahan yahay in loo qalbi waasacsan yahay oo dadku aynan teed hor dhigin ayaa loo baahan yahay wadogtiino aadam iyo xawaa meeshanu ka nimid labadii qof oo ila dhalay markay dambiga galeen waxay yiraahdeen rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin i'tarafu wa guuleysteen oo waa badbaadeen oo adduunka loo soo dejiyay waxa la yiri adduunkaasi mustaqir baa ku tihiin oo wamataacan ila hiin ayaa loo soo dejiyay laakiin ibliis isagu lam ya'tarif bil khata fabaa bi jahannam halkaas uu marka hooy u noqotay marka waxa loo baahan yahay naqdiga in la aqbalo
وقفك حق النقضه أو أعرف وحشدة قضاء هو النقطي مركب حلو بهاي نقدك إن لا أقبله وقفك حق النقضه أو أعرف وحشدة قضاء إنه نكموتين أي لو بهاي عمر كتابك أقرأ أبي موسى الأشعري كتاب عظيم وكتابك مشرحه أيوه ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين كتابك كشرحي وجل مباحثة كتابك كساب سيئه وكتابك عمر أدر يا أبي موسى الأشعري وحاكم لها وحيالي أيريه عمر وكتابك كم لها لا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل يعني هو يونكو ديدي ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل يعني هو يونكو ديدي حكم أد حكمتي ما أنت inaad dib itaad ugu noqotid oo aad aragtay oo dib ugu noqotay oo aad heshay sawaabkii inaad ka noqotid maxaa dhacay xaq waa qadiim wax burinaya ma jiro xaq in loo noqdo ayaa ka fiican waxa baadilka ah lagu socdo ibn qayyim al-jawziyya wuxuu ku sheegay kitaabkaas umar mas'alatan loo yaqaan oo miiraadka ah umar markii uu haweentii dhimatay oo ka tagtay ninkeeda iyo walaalaheed oo isku hooyo yihiin iyo walaalaheed oo ashiqa yihiin isku hooyo isku aabe waagu hore waxba uma xukmin oo wuxuu siiyay al-ikhwa lil-um ayuu siiyay oo misalada taqaaniin oo hab anna abana kana himaran ma garatay alaysat ummuna wahida tashriikiyay waa waraajiyay qoladii ashiqada ahayd iyo qoladii ay hooyadu dhashay markaasani wuxuu yiri سندك هوري ما أدن ولاجين مقاسا عروحي تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم تاسنا شلي واساء حكمي ما انتنا توي بمعنى وحوية حكم كاسي وحوانا ورسو النغضي واجتهادني اجتهاد كاسينا واقروا سني كواسي واتقين وحاكمكو سليسا وحو حكمي لما نقضيه حضور نصوص خلاف سنين واجتهادي هي لما نقضي هذيك له احكامته دن isbaraamir ba ku dhacaysa kaas marka hadda lagu noqon maayo kii way hore u xukmiyay dib loogu noqon maayo la oran maayo xoolaha loo celiyo qoladaas tagtay laakiin wixii ka dambeeya qolooyinka ka dambeeya saana ayaa xukunku ahaanaya arinkaas marka waa arin muhiim ah oo tusinaya ay tahay shay fadiila ah wadi kartaa dadku in ay markay ay masaa'ilka arkaan dadku kala duwan yihiin qaar waxa jira mas'aladii soo baxdaba la gadooma oo la diryaama oo meel la aada oo aan meel ku sugnaanin waa jiraan oo imaa ah oo hadii wadaad mas'alo u sheego wadaad ka raaca hadii mid kale biri yimaadana mid kale raaca ayaa jira arinkaas marka arin loo gol yahay ma ahan waxa u daliil ah xudayfa hadalkiisi حذيفة هذا الكيسي ويري إياك والتلون في دين الله يا إبراهيم النخعي هذا الكيسي وكانوا يكرهون التلون في الدين dadku in meel u gadoomaan oo habda wax ku ordaan oo dadku sawaabid ayna lahayn oo usul lahayn oo yakrahuna talawuna fi diin dadku in meel u gadoomaan oo habda wax ku ordaan oo dadku sawaabid ayna lahayn oo usul lahayn oo lama ogola dadku waa inay usul leeyihiin waa inay sawaabid leeyihiin waxa laga hadlayaa waa waxyaalaha ijtihaadaadka ba laga hadlaya laakiin waxa usuusha ahi wax gooni ah waxa kale oo jirta bini'aadanka qaarkiisna fikradan waa'ide kama noqon karo oo hadalkaasi waanigi waa'ide oo ficilkaasi waanigi waa suudiyay oo arrinkaasi ceeb ay ugu tahay arrinkaasina waa arrin dhib ah oo qofkaasi inuu ku jumuud ku suubiyo hadal maalin ka soo baxay oo u qafaalaado oo in waligiiba meel kala fiirin hadalkaasi wuxuu ka soo horjeedaa xadiiska Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu oo nabigu yiri وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين
فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير دار بان كل عرمية دارت أن كل عرتي وحكا خير بدل ما أركها يا وحي مركا أن كل عرتي كفارة قد بان كسر بنا يايو وحي خير كما صل بنا يا ونبي محمد صلوات الله وسلم المؤيد بالوحي أي ساء أرمية مركا أدوه وإن الهدال أركتي وحا كجرتي وح كفي عن أي جيران قلبigaaga iyo caqligaagu inay u furnaadaan way hatta arintaasna waana la amray sida xadiiska Abu Hurayra man halafa ala yamin faraa ghayraha khayran minha falyati alladhi huwa khayrun waliyukaffir an yaminihi qofka hadii uu wax ku dhaarto wax ka khayr badan uu arko ha ka faara guto wixii khayrkaana la yimaado yuuna oranin maya anu arkaa ka dhaarto maya anu hadalkaasan waa iri arin sax ma midda kale oo loo baahan yahay loo gaado waxa weeye xaqa qof walba waa laga aqbalaya kaa'in man kan muslim ayaa muhiima haday xaq yihiin waa in la aqbalaa maxaa u daliila waxa u daliila qisadii balqiis oo quraanku ka sheekeeyay inna al-muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adillah saasitiha boqoradu haday soo galaan nimanka kani dhul waa fasahaadiyaan dadkii fiicnaana oo madaxda ahaana waa duleeyaan ilaahay oo marxaata kacay kadalika yafcaluun wahum saasiyeelan waxa uu daliila nabiga markii ninkii u soo dacwooday oo salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi uu yiri nin baa saa'idi oo ibliis buu ahaa sadaqaka wa huwa kadhub tunbu ku sheegay laakiin diinu weey laakiin kelmadaas uu ku sheegay oo aad xirsiga ka dhiganaysid sax buu ku ahaa ma garat arintaas marka arin loo baahan yahay weeye in lagu baraarugo qala sheegay oo aad xirsiga ka dhiganaysid sax buu ku ahaa ma garat arintaas marka arin loo baahan yahay weeye in lagu baraarugo qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah la yajuzu lana إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق يعني هدي ما ربنا نوليه هدي من يهودي أو نصراني اسكدع أن رافضي أو سوى دائرة كتيرة هدو قول حق يراهدو إن كتب الدين كل جيس wixii xaq baan qaadanayna wixii baatilana waa diidayna wixii baatilana waa diidayna waxa dhici karta dadka inay yiraahdaan arrinka noocaas ah waxaad raali gelinaysaa oo aad u gargaaraysaa hadalkaasi hebel oo hebel ah baa saas yiri oo aan fiicnayn adigu marka waad garabisay oo aad kor yeeshay oo aad rajaxday tamattuca xajka shiicada marka waa u hiilisay arrinta tan bayata wujuhahum ayagii baad xoojisay markaasuu yiri inaad aqal badan taan ku maleeynahay intaasoo xadiis baa ku sax noqday agtayda oo ku sax noqday in tamattu fadli badan yahay ma ka leexanaya waxaan uga leexanayaa raafida saaqafta ma garad arintaasi waa mucjumuud mayo arinkaasi marka waa arin iyada loo baahan in lagu baraarugo waxa kale oo loo baahan in lagu baraarugo qofka ummadda u naseexaynaya inuu ka baqa maahan waxba laga sheegaya ama waa lagu la diriraya inuu ka baqa maahan dibba u imanaysa laakiin caaqibada isaga yeelan doona waa ogtihiin oo rugooda waa koryaal sheekh islaam ibn taymiyyah kamid aha soo xiran buu dhintay xabis buu ku jiray raxmatullaahi calayh min mujaddidana waa aqwaashi afcaashi iyo hadalada ku hadlaayeen maanta intishaarka yeelatay waa ogtii wakadalika ghayru sidoo kale dad badan ayaa saaxa shawkani markuu tarjamayo suyuti fi al-badr al-tali' wuxuu yiri jarat aadatu allah subhanahu kama yadullu alayhi al-istiqra' biraf'i sha'ni man 'udiya bisabab 'ilmihi wa tasrihihi bil haqq wa intishari mahasinihi ba'da mawtihi وارتفاع ذكره وانتفاع الناس بعلمه والعاقبة للمتقين يعني ساسة عادته تهي بدك النوعاس لو ودره إن إلهي حامكو إلى هذا أقرقاره
ayaa dhici karta waana u badan tahay waxaa dhici karta in yani saasa caadadu tahay dadka noocaas loola diriro in ilaahay maxaan ku yiraahdaa u gargaaro ayaa dhici karta waana u badan tahay waxaa dhici karta in la tashwiihiyo sumcadiisa wax laga sheego waa dhici karta waxyaalo fiican oo ku dhawaaqayna in la khaldo waa suurtagal oo si kale loo fasiro sakhawi markuu u tarjumayo biqaaci fi daw al-lami' wuxuu ku qabsaday hadal uu yiri biqaaci nin imaam ah waa ninka iska leh kitaabka munaasabaadka oo quraanka ninka iska leh way ninkaas wuxuu yiri markuu iska sheekeeyay wuxuu yiri buu yiri innahu la yakhruju 'an al-kitabi was-sunnah bal huwa mutatabi'un bi tiba'i as-sahaba ninkaas wuxuu yiri anu ka bixi maayo kitaabka iyo sunnada sida saxaabadu u dhaqantay baan u dhaqmaya yakhruju 'an al-kitabi was-sunnah bal huwa mutatabi'un bi tiba'i as-sahaba ninkaas wuxuu yiri anu ka bixi maayo kitaabka iyo sunnada sida saxaabadu u dhaqantay baan u dhaqmaya waxyaalo ku ciideeyay bi kamid ahay shawkani wuxuu yiri hadii manqabatun sharifa wa martabatun munifa marka kan waa ayamahane waa martaba sharifa weeye oo maxaan ku yiraahdaa nin gaari karaaba ayna jirin marka in maxaasintii laga dhigo masaawi wax sax ma waxa jira tabiicaad bay leedahay in xaq lagu hadlo wax iska sahlan ma ahan ويوتيرو حديث صحيح هي waxa kamid aha أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ninka jaa'irka ah sultaanka ah waxa uu markaas kugu fulin karo xukunka ninka ka hor tago oo yiraahdo waxa si xaq ma ahan waa arrin fadli weyn lahu min afdal ay laftigeedu loo adkaysan karo oo wuxuu adkaysan karaa ma jiraan ummadii dhan marto ay tiraahdo war ninka kan waa khaldan yahay ayuu laftigeedu arrin sahlan ma ahan laakiin nabiga wuu nagu baraarujiyay sallallahu alayhi wasallam alayhi ala la yamna'anna ahadakum haybatu an-nas an yaqula bihaqqin idha ra'ahu aw sami'ahu tayarka iyo waqtiga markaa jiro iyo caadaati naas iyo acraaftooda hadii loo dhagraariyo ummaduba ka gudbimayso meelaha khatarta ah oo yaani jiiraha ah ka gudbimayso waxyaalaha aan ka hadlayno oo aan leenahay waa noqoshay yeelan karaan saxid bay yeelan karaan kafiirsi bay yeelan karaan waa kuwa nusuusta noocaas oo thawaabida ah ayadu nusuusta thawaabida ah ama muhkamaadka ah ayadu hadii dooris ma leh waa wax sugan waxa dhici karta dadka qaarkiis ayaga oo ka faa'iideysanaya tagayur al-fatwa iyo mutaqayyirat iyo thawaabit baa jirta iyo ayuu ka faa'iideysanaya inay diintiiba ka dhigaan in wax walba laga ijtihaadi karo oo wax walba la tajdiidin karo sida ragga qaarkiis ay alifeen oo tajdiid al-usul al-fiqh iyo wixii la halmaala iyo aragtiyaal nooc oo soo baxay oo raba in ayba naskiiba wax isma ah ba aynan siin naskiiba wax tabaadaba aynan siin arrinkaas arrin khatar weey arrinkaasi arrin khatar weey laakiin waxaan ka hadlaynaa waxyaalaha mutaghayyiraadka ah oo ijtihaadaadka ah baan anagu ka hadlaynaa waxa dhici karta marka qaarkood dadka ay iskaga daranto waxyaalaha mutaghayyiraadka ah oo ijtihaadaadka ah baan anagu ka hadlaynaa waxa dhici karta marka qaarkood dadka ay iskaga daranto waxyaalaha thawaabida ah oo nusuusta ah iyo waxyaalaha ijtihaadaadka oo dadka qaarkood ay u qabaan ijtihaadaadkoodu inay cismo leeyihiin oo ay nusuus kale yihiin وهذا غير صحيح كاسي صح ما نبيه كما في صحيح مسلم مركو نينك لا دردارمهايي صحابيغا هو عيدنك وتي ووحي واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ام لا هذا تابع ميل هريريسيد وراس مفوضات لقى هذا حكمك الهي بان ان لقى لا حكمك رسولك هذا ادو غرام بعد عكرت لكن ده رايغاس iyo dadka iyagu waxa taabic meel hareereysid waraas mufawadaad la gashay atiraad xukunka ilaahay baan in la galay xukunka rasuulka hada adu garan baad dhici karta
laakiin dheh ra'yigaas iyo dadka iyagu waxaasan adhow go'aankaasaan gaarin inay isbedelaan baa dhici karta wax kala soo dego wax kala soo degaan ayaa dhici karta marka qofku waa inuu ra'yigiisa iyo ijtihaadkiisa iyo kala saaraa waxyaalaha nusuusta marar badan waxa arkaysa qofku inuu ku yiraahdo wallahi manhajka ilaahay way wallahi kan waasa oo isaga ra'yigiisa iyo ijtihaadkiisa kaliya ولذلك وحورن جري ابن تيمية رحمه الله ولكن كثيرا من الناس ينسبون إلى ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع بل يقولون ذلك إما جهلا وإما غلطا وإما عمدا وافتراء تذكر قاركود رأي قوضي اجتهاد قوضي أي وحي أمس بينيان نصوص الشرع أم أن يقول لما أداه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص أن الله حرم هذا وأوجب هذا أو هذا حكم الله قفكو وحكو اجتهاده وأون النص هيسا يونو أرنن إلهي كان حرامي كان حلالي مقرتي كان حكمك إلهي هذه قصارى جهدك وحوي أنا التهديد هذا أشبه بنصوص الشريعة هذا أشبه بالحق مقرتي ووح أدورن كرتين أو محام كنا راسعون كرو سائغة أنا بس محاك اللازميسة وحاك اللازميسة إن أنا أذكر رأيي على كفر ضن اجتهاد كذا اجتهاد كذا الله هاي ذكر أنا كفر ضن سنبهان بدي على عرض السوق واحد حجة يستد واحد أدلة يستد عرض لكن أنا كفر ضن شدتك رأيي على مركي منصور وكضل بي كتاب كان موطأة إنه مدة كل إلزاميه وأديري وهذا من كمال دينه وعقله أنا كاسي واحد تسمى مالك إنه دين بدنا سوته إنه هدينا اللي هذا رأيي إنه أمده لو معموله نولي وابج على الله وحرن لها رأيي مويه وتذكر واحد لو معموله يسوون هذا كتاب كاس موطأ وكتب كتاب سنة وحديث النبي كتب وحده waxyaalaha ra'yiga ku jiraan oo isagu ijtihaadada uu leeyahay waa ku jiraan oo kitaabku kaba mar ikhtiyaaraad isagu uu leeyahay wuxuu ka hadlayaa waa ikhtiyaaraadkaas dadka ku laazimin buu yiri dadku culimo horay arkeen saxaabadu waa kala waa meel kastay tagtay cilmi badan bay dadka ogaadeen hal kitaab umadana ku laazimin arintaasi diin iyo aqli bay ka tarjumaysaa rahimahullah imam dar al-hijra imam ahmad wuxuu yiri la yanbaghi li faqihi أن علم بلان بيتكان أغادين هل كتاب مدنا كل زمن أرنتاسي دين يا عقل كتر جميسة رحمه الله إمام دار الهجرة إمام أحمد وحي لا ينبغي لفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم كتاب الآداب الشرعية إمام أحمد بكسر نقلنا يا معهن إن هذه المذهب كاسمه يئه مذهب كان لبقى عن كره رأي كاسمه يئه رأي كان ومصر عن كره ونوع جموده ونوع جموده أرمعسي وأرر أررهاسنا وحيالا كران إن وحيالا بدن أو صحوه لا هاي لقاها الله وفكي أوريي وكهلا ما هي علم بدن بك هذا الشيء وشغل المعثيمين يوالرتين وكتاب كضوابط وتوجيهات للصحوة إيه دب تربضا أو علماء هيا كهلا وأنا فرنتها وحوية والنظرات ما أهن محامكو إراهدا wax laazima ma ahan wuxuu ku khaldami karaa oo ku gafi karaa hadii qofku uu gafo oo si cilmi iyo cadli ah loola niqaashana waxa weeye saas culimadu ahaan jirtay oo bi'adlin wa ilmin ay lagu niqaashi jiray arrimaha marka u baahan runtii in saxwada lagu tawjiihiyo oo laga hadlo waxa kamid ah oo runtii zamanka hadda cusub ah oo fitanku socda ah waxyaalaha in laga hadla ah waxa kamid ah إلهي وحن درتيس إني أهادان صوته حوي صحوده هذا وحي لقوة الله نيره وابضت مالك استيتكت وحديعي كرتا dadkaasi wixii tirada badnaa iyo wixii la soo maray oo loo soo adkaystay in wax ka badani ay hada soo baxaan oo leeyahay halkan ka dhowdahay halka kan ba adduunyo ka dhowdahay in ama halkaana maxkamada ka dhowdahay in dad badani ay halkaas waxaan la tacaamulayno ilaah uu yahay qasadkeeduna ilaah yahay mar walba waa in istixbaarsanaa ikhlaaski wama umiru
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنا قصدنا الأمر وحوية إخلاص كاس ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مركي فضيل وفسرها يوحي أي أخلصه وأصوبه ما قرأتي كان خالصا ومارتي صوابك ويه أركعت مركا وإن نكوها إنا إشكوها إنا الله درتي تجرد دن الآن إلهي إن نقول وانه مروا البحر تاسونا سبع دعنا وسكواننا sababaha waxa weeye waqti xun baa lagu jiraa waqtiga xun lagu jirana waxyaalo badan baa soo kordhaya oo ayuutii nabigu wuxuu yiri salawaatu ullaahi wa sallam la tata'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama wala litumaru bihi as-sufaha wala litakhtaru bihi al-majalis faman fa'ala dhalika fan-nar an-nar. yani ilmiga hu baranina in aad mubahat iyo culimo la dood iyo dadka sufahada ah oo la murma iyo in maaragtay ninka majlis loo dhigo oo sadaara u helo iyo qofka saas yeela hada arintiisu way ogtihiin halkaas maraya. xadiiska kale Abu Hurayra man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah. ankaasi waa arin inagoo dhan inaga nixinaya u baahannahay mar walba inaan isku akhrino. ibn Mas'ud xadiiskiisii kayfa antum idha labisatkum fitnatun yarbu fiha as-saghiru wa yahramu al-kabiru. nahay mar walba inaan isku akhrino. ibn Mas'ud xadiiskiisii kayfa antum idha labisatkum fitnatun yarbu fiha as-saghiru wa yahramu al-kabiru wa tuttakhadhu sunnah مبتدعة يجري عليها الناس فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. يعني حديثكم انت عندما يخصيصة والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. يعني من كان بدقلي كلا وما من كأه أرنكاس بلا إخلاص واقتداء عمل آن إخلاص يكون يشلهين وحلمي ده كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. intuu dambiil iska maartay ciid ka buuxsaday iska qaatay hada culays umooyay wax kale ay ku tahay ma jirto. arrinkaas marka runtii baqdinteeda iyo shidadeeda leedahay waa inaynu mar walba ku haynaa arrinkaas. saxwada waxa loo baahan yahay inay ku dhisnaato cilmi ayna ku dhisnaanin cadfo iyo ra'i. arrinkaasi waa arrin muhiim ah sababtu cilmigu وكهريا وحولبا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بخارنا وبابي باب العلم قبل القول والعمل. علم وكهريا أرانشها يفلك اللبضبا مقرتي أرنكاس مركة وأرن مهمة. وحكروا حديث النبي صلوات الله وسلامه على من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني أرنكاس خير كاسنا هذا في سياق نكره ويأو معناته سياق شرطي من يريد الله به خيرا ويعم كل خير يفقهه في الدين. أنا كاس مرك أرمه نوية نبينا ودعية صلوات الله وسلامه عليه ذاتك علم جبرانية نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. دعاء النبينا ومقبولة. أنا كاس مرك إنهم كده له وية علماء هرنا wax badan bay ka hadleen oo waxay yiraahdeen sida Zuhri ma ubida Allah bimithli al-ilm ilaahi lagu macaabudin wax ilm lamid ah. yani ilmu wax ka soo ugu sareeya hatta wax ka sareeya waxyaalaha kale. ilmu wuxuu la mid yahay caalimku wuxuu la mid yahay sidii ilbiya ah bimithli al-ilm ilaahi lagu macaabudin wax ilm lamid ah. yani ilmu wax ka soo ugu sareeya hatta wax ka sareeya waxyaalaha kale. ilmu wuxuu la mid yahay
caalimku wuxuu la mid yahay sidii ilbiya ah oo magaalo joogta oo macaani ilbiya ah oo joogta sida maaragtay dadku uu intifaacsado ayaa caalimku yahay cilmigaasi marka waxa loo baahan yahay in lagu dadaalo علي بن أبي طالب وحو أرنشري علمك وحا شرف وفلا كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه يعني علمك نكي لو نسبه وكفر حياة كو عالم لي يراد حتى دون أغون لكن منك الذي له جاهل باته وحناق هيا وبلد عيس مرك انت وفلا علمي arrinkaasi marka waxa weeye waa arrin muhiima maakhidmi arrinkaasi marka waxa weeye waa arrin muhiima maakhida ay saxwada cilmigu ku leeyahay waxa kamid ah si manhajiya cilmiga oo bartaan waxa dhici karta inay muhaadaraadka yimaadaan wacdiga dhageystaan laakiin cilmiga si manhajiya oo kama bilaabaan miri laga bilaabi jiray waxa loo baahan yahay cilmiga in laga bilaabo fanni kastaba wuxuu leeyahay kutub musalsal ah ama ha noqdo usul ama ha noqdo cilmi mustalah ama ha noqdo tafsiir ama xadiis ha noqdo ama culum al-arabiyya ha noqoto wama ila dhalik waxa weeye meel laga bilaabo ayay leeyihiin oo kadibna lagu socdo oo tartiibtaas manhajiga laanta waxay keenaysaa ninku inuu 30 sano 20 sano saxwadan ku dhex jiro una kitaab laqbayn karin hal kitaab una laqbayn karin oo aan cid lagu halaysan karin cilmi dhaw tiro badan waa haya laakiin ninkii wixii ma fulin karo arrinkaasi arrin soo baxday weeye oo u baahan cimriga bini'aadamku waa yariya cilmiguna waa kala fadli badan yahay ninku waa inuu ogaada cilmiga adduunkiisa iyo aakhiradiisa uu ku badbaadi karo inuu barto waxa jira cilmi mafduul ah oo qofku maxaan ku idhaahdaa waqti badan inuu ku dhumiyo ayna laazim ahayn laakiin aad arkaysi dadku inay waqti badan ku dhuminayaan وعلمي أساسي لها أين علمي أين وقت بالقدومنا إن هي الأوقاتي إن هي الأوقاتين إن محامكو إلى هذا أترجمت ذات ربضا إن وحاسي ووحس مفضولة علمي فاضل كأها وحراش يحران تأها وإن لبرته هو مهم وحكى له مهمة وإن الأوقاتاء مركا قاطة وحاركسا مسائل أبد وعويص ونوازل وأباهن إن مجامع علمية لو فريسيه إن أحد الطلبة أكفت وانيا وتلك الديبانية ومحامكو إلى هذا كل ريهين ومحامكو إلى هذا أرنكاسي جراء كليهين أي أركسة مسائل عظيمة وعويصة أي أورنجل العلماء هدي عمر لو يدين لها وحو أكل من لها لجمع لها أهل بدر أي أوران له بالكارية مسألة باطنية ما حد لطها أيام حد يكرت أحد الناس إن يكون بهذا ما قرأتي أرن كاسنا وأرن آدي ودي بطن وحكى له أيضا لفتي هذا موقته وحل يراهده تنزيل الأحكام على الواقع أحكامته إن واقع الود تشيه أيضا لفتي هذا موقته وحل يراهده تنزيل الأحكام على الواقع أحكامته إن واقع الود تشيه وعلم أبد وعلم أباهن فقه ربضا وعلم إحاطة ربضا أباهن وعلم إن لقد وصله وأن لقد دقين أباهن حدنا أيا لقد هذي أيا لقد هذي نقول هل مسألة مالك أخرنيا مسألة سوء فهمي أيو واقعي كتنزيلينيا وكحكمينيا أركاسنا أهل خطرة وهي ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين وحيري ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف أعرافهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلدانهم وعوائدهم وأحوالهم فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلدانهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب يعني إن مسألة ملكو أركتين تنزلها على الواقع محاد عين قفك فتوى وحو باهية مركو أورتين ونصوص شريع كورقب
marka labaadna inuu ka warqabo waaqaca uu joogo uu fahamsan yahay marka saddexaadna tanziil hada an-nusus ala al-waaqi' uu leeyahay ahliya inuu u leeyahay arimahaas waxa moodaa arimaha aad iyo aad loogu degdego oo muuqataha ayuu kamid yahay masaa'ilkaas cilmiga ah maadaama waqtigu kooban yahay intaasaan ku soo koobaya waxa kale oo runtii loo baahan yahay saxwadu inay dib u noqoto cilmiga barashadiisu waa lagu dadaalay laakiin ku dhaqankiisii ayadahaas waxay tusinayaan qofku in uu waxa uu ku hadlahayo oo dadka u sheegayo uu yahay qofka ugu horeeya oo ku dhaqmaaya hadii kale wabaalun calayhi way ibn mas'uud wuxuu yiri inna an-naasa ahsanu al-qawla kulluhum dadku waa hadal fiican faman waafaqa fi'luhu qawluhu fadhalika alladhi asaba haddahu ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه dadku kulligoodana waa hadal fiican marka lalaha aragtid oo hadalkoodu hadal fiican weeye laakiin imtixaanka casiirka ah waxa weeye waa dhaqanka xaga dhaqanka weeye wuxuu oran jiray Qasim ibn Muhammad wa fuqahadi Madiina oo caan ka ahayd adraktu an-nasa wama yu'jibuhum al-qawl inma yu'jibuhum al-amal dadka waxa soo gaaray ayagoo dhaqanku u ajabiyo laakiin hadalku aan wax weyn ugu fadhin ayaan soo gaaray walidaalika ibn qayyim wuxuu yiri wama yu'jibuhum al-qawl inma yu'jibuhum al-amal dadka waxa soo gaaray ayagoo dhaqanku u ajabiyo laakiin hadalku aan wax weyn ugu fadhin ayaan soo gaaray walidaalika ibn qayyim wuxuu yiri law nafa'a al-ilmu bila 'amalin لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب يعني وحوي هدي أن علم ودوح أنفعها يسوى لو من إلهي وحكم الشيئين ومعاين علماء أهل الكتاب محن علم هو هي دغل الآن بهيسي أنا كاسمر كأرين آدي آد لو بهي وهي إن دغنكي يددكي أنه أن وحن أشيئينه أين أركان إن أنه هرينه أماندي صدقي تثبتكي akhlaaqiyadkii oo dhan oo dadka loo sheegayay oo qudwada ahaa weena dadka ugu horeyna runtii waxa dhici karta in la yiraahdo oo dadka qaar kood yiraahdaan tathabutkii akhlaaqiyadkii oo dhan oo dadka loo sheegayay oo qudwada ahaa weena dadka ugu horeyna runtii waxa dhici karta in la yiraahdo oo dadka qaar kood yiraahdaan warad haya hadii arrin saas tahay ama dadka wax uu sheegay la waaya oo dadku ay yiraahdaan waroniyo anu hadani horaad ma ahiye hadalkaas iyo ama balaa iga soo gaarta arinkaasi waxa weeye waa min waswasati shaytaan labada arimood waa laga rabaa dadkan wax u sheeg kula dhaqan labadaba waa laga rabaa marka yaan ummadda in wax u sheegeedina laga cuzuuf lagu soo binin oo laga tagin laakiin waa in lagu dhaqmaa مروا الله الله حسن البصري مطرف من عبد الله الشخير ويري ضدك واني سيري وحن كعب سنة يا إنا إلى هذا أنا أقول ما لا أفعل مركز أينا يفعل ما يقول ولم ينهى عن منكر يعني وحوي أنا كاسي وأنا كشيطان قربه وضدك ودرني عامسان إلى هذا ورنو وحما قبان كرنه مركز أنا كاسنا الله مربه ولذلك بيهاقي وحكو جمعيي wuxuu yiri dadka loo diidan yahay inay yaani ay dadka wuxuu sheegaan ayagoo aan ku dhaqmayn waa dadka ah fasaaqada ah fajarada ah laakiin dadka ilaahi iyo maxaa ku rasuulkiisa adeeca laakiin waxa ka dhacaan oo toobad keena waa dadka wuxuu sheegaan weena dadka wuxuu sheegaan nawina wuxuu yiri qaal al ulama wala yushtaradu fil amir wan nahi an yakuna kamil al hali mumtathilan ma ya'muru bihi مجتنبا ما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر وعن ورع نوع عاسي كلاء ونصابهم أرنك كلا بها يستحوذ إن أي آدي وفكرته وطلبة العلم وحل يراهدو شهرة عجبك iyo qofku markuu xoogaa barto waa is arkaa kibir baa gala kibirkaasi waa jiran nafsaani ah oo loo baahan yahay in la daaweeyo waxa lagu daaweyn karaa
tazkiyat النفوس iyo riyaadat النفوس ayaa lagu daaweyn karaa. arrinkaasi nafta in la diriro way naftu way jeceshahay inay muuqato. bini aadamka naftiisu in la sheego oo uu muuqdo oo la arko oo la xuso oo bini aadamku waa jecel yahay. wax hawada khafiga bay ka mid tahay oo bini aadamka ku jirta. saadarteed arrinkaasi waa muhiim. nabigu wuxuu yiri salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi man maata wa huwa bari'un min al-kibri wal-ghulul wad-dayn dakhala al-janna. intaas bari ka ah saddexdaasi nabigu wuxuu yiri salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi man maata wa huwa bari'un min al-kibri wal-ghulul wad-dayn dakhala al-janna. intaas bari ka ah saddexdaasi jannada ayuu galaya. arrinkaasi marka waxa loo baahan yahay in aad iyo aad looga fiirsado. wuxuu oran jiray Abu Darda calaamatu al-jahli thalath al-ujub wa kathratu al-mantiq fi ma la ya'nihi wa an yanha an shay'in wa ya'tiyah. yani jahli calaamadkaas uu leeyahay saddexda ah waxa kamid ah al-ujub ayaa kamid ah. wuxuu oran jiray Ibn Mubarak uu ka soo naqliyay Mutarrif ibn Abdullah al-Shakhir waa ninkaas caabidka ah oo caanka ah inuu yiri in aan habeenkii bariyo oo hurdo oo aanan u soo kicinin qiyaamul laylka oo subaxii aan ka nadaamoodo baan ka jeclahay inaan habeenkaas oo dhan taagnahay subaxiina ascajabiyo iraahdo xalay waa taagnayd oo naf fiican baa tahay kaasaan ka jeclahay. kamida man ujiba bi ra'yihi dhalla ninkii iscajabiya waa baadiyooba. waman istaghna bi aqlihi zalla qofkii aqliga ku filan oo dadka ka aqli badan tahay waa sinbir raxanaya. arrimahaas marka waa arrimo looga baahan yahay in dadka dalbatul cilmiga ah maxaan ay shahawaadka shaydaan ka soo galo halkaas koow ah. yani qofku inuu jeclaado shuhrada iyo muuqaalka iyo in maxaan ku iraahdaa la sheego arrinkaasi waa arrin aad iyo aad loo baahan yahay in la iska ilaaliyo. nabiga xadiiska ibn Amr Abdullah ibn Amr ittaqu hadhihi al-madabih yani al-maharib ay tajannabu sudur al-majalis magarata ay yani tanafus fiha iska ilaaliya. xadiis saxiixa weeye in aad sadarada yeelataan oo idinku aad muuqataan oo madax noqotaan oo wama ila dalik. arrinkaasi waa arrin khatar ah iska ilaaliya. wuxuu oran jiray Abu Abdullah an yaftinuhu qofkii shuhrada lagu ibtileeyo in ay fitneeyaan oo dadku fitneeyaan fitna kama aamin aha oo waxa weeye arrinkaasi waxa dhici karta arrin aad ugu soo degdegta waxayna keenaysaa dadkii inaad xaqirtid oo dadka kale ay kuula muuqdaan waxaan waxba ahayn inay kuula muuqdaan waa khatar ah. waana bixasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim. soo xadiis saxiixa ma ahayn Abu Hurayra wariyay Muslim. arrinkaasina arrin khatar ah weeye oo loo baahan yahay inaan nafteena kala dirirno. waxyaalaha saxwada runtii in lagu waaniyo isku waanina ah markaan leenahay saxwada lagu waaniyo saxwadu waxaan ula jeednaa inteenaan way iyo in la mid ah qof mustatna ka ah oo soo muallim ah oo soo ka baxsan oo ardadu waxa ha yeeleen ah ma jirto. hadalkaasi ilayka a'ni wasma'i ya jara waa dadkoo dhan inagoo dhan ba isku jeedinayna nafteena ayaa kow ka ah tan oo ardadu waxa ha yeeleen ah ma jirto. hadalkaasi ilayka a'ni wasma'i ya jara waa dadkoo dhan inagoo dhan ba isku jeedinayna nafteena ayaa kow ka ah. waxa kamid ah arrimaha loo baahan yahay insaaf iyo mubaalaga la'aan markii dadka la jeclaanayo ama dadka la nacayo. waxa arkaysa aad iyo aad arrimahaas waa arrimaha lagu ibtilaysan yahay insaaf la'aanta iyo waxa lagu ibtilaysan yahay mubaalagada qofka lagu xadgudbo marka wax laga sheegayo ama marka la jeclaanayo labadaba lagu xadgudbo. xadiiskii Ammar oo Sahih Bukhari ku jiray wuxuu ahaa thalathun man jama'ahunna faqad jama'a al-iman. waxa kamid ah al-insaf min nafsik in qofku naftiisa uu insaaf ka suubiyo oo insaafku muxuu yahay aduu waxaana dadka u jeclayn oo dadka aadan naftaada u rabin dadka ha u rabin xumaysid in uu xumeeyo ma jeedo dadka xumaynin insaafkaas la yiraahdo. yani waxa weeye inaad muamala bil mithl oo aad tahay nin mu'tadil ah oo garawsada wixii ku aadkiisa anka arrin muhiim ah. xadiiskii Muslim wuxuu ahaa innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum
وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. حديث كديراء فتنة إيمانيسة فتنة سيرقق بعضها بعضا قفك مؤمن كاي أوران دونه هذه مهلكتي هذه مهلكتي. حديث كآخر كيسا محل شاهد كأوحوية فمن أحب أن يزحزح عن النار qofka raba in naarta laga fogeeyo oo jannada alla geliyo haw timaado geeriyiisu soo alla rumaysan iyo maalinta aakhire dadka hawla yimaado wuxuu jecel yahay in loo yimaado. arrinkaas marka arrin muhiim weeye. walidaalika xadiiska siyaaqiisa waxay ku tusinaysaa fitanka iimaanaysa inuu ka mid yahay dadku inay insaaf ka tagaan. siyaaq xadiiska oo inay fitan iimaanayso yuraqiqu ba'daha ba'dan وقفك أرمي هذه مهلكتي هذه مهلكتي وحوي إنصاف كاسي إنه نقن دون عديم إنه قليل نقن دونه أي موقته وأنا مشاهد وملاحظ. أريك أمرك إنصاف كأه وأنا لو بهيه مبالغة دري إن الواحد قد من ذاتك مكلا شعلانه يو أما ذاك اللي نبعانه هذا عكرته أنت اسكو جروب كأهنا إن يآد اسكو بونبونسو اسكو شعلاته ذاتك مركاسي أي ليه هو نقصه كذا إن يآد ونبعانان ولا diriraan arrinka isku buunbuuniso isku jeclaato dadka markaas ay leeyihiin waa naga soo horjeedaan ay aad u nabcaadaan wala diriraan arrinkaas arrin sax ma xadiiska saxiixa oo ali marra mawquuf weeye marra marfuucan lagu tiriyo ahbib habibaka hawna ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. yani qofka cidida suubi shalay ninka adoo dhalada uu ku saaran yahay hal mar ha soo tuurin arrinkaasi wuxuu keenayaa arrin aad iyo aad u shida badan weyn. waana loo baahan yahay dadka muslimiinta ah oo ahlu cilmiga ah waa dhici jirtay bini'aadamka waa ka dhacdaa laakiin zamankan mutaakhirka ahi waa sii badan yahay aad u sii badan yahay in guluwi lagu suubiyo imma fi al-madhi wa imma fi al-dhamm labadaba in lagu suubiyo waa arrin aad iyo aad u socota weey. imaamkan mutaakhirka ahi waa sii badan yahay aad u sii badan yahay in guluwi lagu suubiyo imma fi al-madhi wa imma fi al-dhamm labadaba in lagu suubiyo waa arrin aad iyo aad u socota weey. imaam ahmed dad baa ku xadgudbay oo waxa kamid ahaa sida dahabi sheegay maxamed ibn yahya an-naysaburi markii ahmed dhintay ayuu wuxuu yiri haqqun ala ahli kulli baytin fi baghdad an yuqimu manahatan ala imam ahmed. waxa waajib ku ah dadka oo dhan oo reer baghdad ah inay barodiiq u suubiyaan imam ahmed. qala dhahabi wuxuu yiri inna an-naysaburi takallama bi muqtada al-huzn la bi muqtada ash-shar' kuma waan hadlin sharciga wuxuu keenayay isaga maxayntii haysa ayuu ku hadlay maxaa dhacay niyaxada waa laga reebay sharciga ma banaana. qaarna waxay yiraahdeen khurasan waa min al-malaa'ika laysa min al-bashar markaasuu yiri hada ghuluun la yanbaghi. waxa oranaya ninka la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa al-dhahabi rahimahullah. marka waxa arkaysa xadgudubkaasi inuu dhacayo xagga jacaylka xagga dhanigana iyo aydana in xadgudub lagu suubiyo. wuxuu soo raray ibn kathir fi bidaya wa nihaya oo ka soo raray markuu tarjumaya ninka Mansuur Abi al-Maali al-Jili al-Qadi inuu maqlay nin leh ximaar baa iga dhumay dameer baa iga dhumay yaa dameerka arkay markaasuu yiri waxa tagtaa baab al-azij waa baab xanaabiladu degan tahay baghdad xaafaday ahayd baabkaas tago haqaatu qofka rasa ka qaado iga dameer ah yani xanaabiladu waa dameero kale yani xanaabiladu waa un dameere mid ka qaado oo kale yani waxa weeye waa nooc musunta guluwi oo bilaaho in kaar ku dhacday amrun la wada'tu al-jizyata 'ala al-hanabila haddaan anigu aan maanta xoog lahaan lahaa nimankaasi jizya ayaan ku waajibin lahaa jizya ayaa ku waajibin lahaa yani waxa weeye waa guluwi aan loo baahnayn oo maxaan ku yiraahdaa waxa dhacday ma ahan in la hadlay gacanta laga hadlayo waxa la soo saaray qabriga Abil Kayzani Zahiri nin la oran jiray
oo Shaafici agtiisa ku duugnaa Masar baa laga soo qaaday qabrigii markaas ninkii ka soo qaaday wuxuu yiri la yakunu siddiqun wa zindiqun fi mawdin wahid min zindiqa iyo min siddiqa yani Shaafici hal meel inay ku jiraan ma aha yana waxa ku tusaysaa xad gudubku intuu la eg yahay bini aadamka ظاهرadaasi waa jirtaa halkaas in la qaybinayo kan waa munaafiq kan waa mubtadi' kan waa daal kan yani lagu xad gudbayo ay dhici karto waxyaabo oo aan xoog badnayn inuu keeno oo insaaf la'aan ay keento oo qofku inta markaas isku gurubka yihiin uu kor yeelo inta kalena uu wax ka sheego uu leeyahay maxaa ka kala hadlaysaa munaafiq weeye inuu yiraahdo waba ila dalika arrinkaasi arrin aad iyo aad u dhib badan weeye oo loo baahan yahay saxwadu inay ka waantowdo magaratay si ay khayrkii tirada badnaa oo ay qabatay u barakoobo waxa boodaa in war ku dheeraaday waa soo yareynaya hadii la yiraahdo waxa kamid ah oo saxwada waxyaalaha lagu dhaliili karaa kasratul khilaaf aan muctabar ahayn khilaafku marna waa muctabar marna muctabar ma inta badanna khilaafka waxa keena xad gudub baa keena in la isku xad gudbo وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلهي صغير يعني بغي يحد إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلهي صغير يعني بغي يحد قدبك يقول إنه كبر دراته أي آلا كانت خلافك أنا كاسي مركا إننا وانا لو ديدي وانا اسخلافنه وانا لكنهي ولذلك وحوي دينتان iyo ummadatan nusuusta ku soo aroortay khilaafka la dirirkiisa wax laga sheekay karama ayada kaliya mawduuc kaliya marka ku dheeraanayno waxa la cajabay nin araba oo muasir ah gabay mutiriyay bahastu an al-adyan fi al-ard kullaha wajibtu bilad Allah gharban wa mashriqa falam araka al-islam ad'a li ulfatin ولا مثل أهليه أشد تفرقا دبلاسان أغلى ياب يعني وحيري وحن بحثي أديانة أوردن ودن ووريغي ما أرد بالإسلام كوحن لميت سودتك أويرا يؤلفئ استعايل إيو وقرأتين وحيانها ترى بدن الله ريابي حنتي بالريابي نميمدي بالريابي هجرانتي بالريابي وحال الريابي تجسسكي بالريابي وحاصل المحاوي خلاف أسابها كينا وحل لا يعني جماعتي با لحوجيي او ان جماعه كتكنو سفر لبدي اديس ان اسراعان او قف امير laga dhigo qofku inuu kaliya safar waa la diiday yani waxa weeye intaas oo arimood waxa la yiri shayga mafduulka ah ama shayga faadilka ah waa laga tagay laajina wixida marka qaarkood oo walogtooda maqaasida waxa kamid ah marka qaarkood shay fadli badan ayaa waxa looga tagayaa liajli maslaha لأجل المصلحة أي اللغة هي أمطنا كل تجين وفتنا إيمان سيدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه كعبة دمنت لها وها لولا أن قومك حديث عهد بجاهل أنتاس سيدي ويا عبد الله بن مسعود أو قصرنتي تسكت دايي أو إتماميي أو الخلاف شر ما قرأتي ليري قرآنك هدي حتى أسوق بطان فقوموا عنه كتر يعني وحا النصوص كسو أرورتي والفك شيكينيسا يددكو سيهين وأن مقاصد الشرع اللو إلالينين ولي عادة ددك صحوة لو باهي هاي إني أمضى دعان قبطان وخلاف كتير بابيان هدي اللي بدي وداد وودي تشرتي واسكو مياشا أهيد أن لسكو هاين كرين أمضى كلو لقبان كراعيا كتير عامض وحي يراهدان ما قال إني حفالتها إنك له وحي عامض رت علومها هشيسيسة علماء هدي وعدية علماء وعديع كرتايل اسكوي ماذان لكن علماء درتي آخر كل شيء بيها أدوم كل شيء مركا وورع عامو ما قال إني ضبطها إنك له مركا أنا كاسي أرين لقروسن كرو وورع عامو ما قال إني ضبطها إنك له مركا أنا كاسي أرين لقروسن كرو لا أقبلك كرو معه يعني waxa weeye dadku saxwadu weyn akhriyaan kutubta laga qoray khilaafka oo rafci al-malam aan aimmat al-a'lam iyo weyn akhriyaan sida isku khilaafi jiraan culimadu oo wasaga oranahay Imam Ahmed
وحنو يمد إسحاق لم يدي مجره إن كسوا عن إسخلاف سنهي ما قرأتي لكن ما زال الناس يخالف بعضهم بعضا أما يختلف بعضهم معرتي أي مسائل خلافان ولا يدي جرجرت إمام معرتي سلوك له نكل يا شافعي ما كان لغا شاكين هيوحي ميان رالي كو أهين إن أنت وحسكو قبلنه أنا ولا لا أهانه يعني نحو أرناها صباح كتسنيان أرنت ولا الموضوع إن الوكلة تجد مسائل اجتهادية ومسائل اجتهادية هو تربى الناكرة وحوي وحكولي أنا ولا لا أهانه يعني نحو أرناها صباح كتسنيان أرنت ولا الموضوع إن الوكلة تجد مسائل اجتهادية ومسائل اجتهادية هو تربى الناكرة وحوي وحكولي كرابجران هدي مركل إيه هذا ننكي محام كل هذا مسألة سوق قطوة الكليتية أما والله الدرية مهجرة بدعية واحد كنت سنة إن خلل الجرم مع أن ذلك واحد أهل السنة والجماعة ومضة أهل السنة والجماعة تذكر واحد أهل البدعة والفرقة مركل جماعة ذي والتركي خلاف الآنتي أيها الربا وحا شعار أهيد ذلك متدعاء لبا هذي اسكو قبطه مسألة فرقة بسوسنجرت كان فرقة سوسنجر هذا كان ديدنهم ودأبهم marka dadkii ahlu saxwaha ahaa ama sanada ku abtirsanayay hadii laga helo shicaarkii mubtadicada soo aad iyo aad u xun ma oo listabdiiciyo arkaasi arin sax ah ma ahayn walidaalka waxaan la yaabaa marka uu ibn Muhammad ibn Ishaq waa saaxib siira iyo Imam Malik xogada ka dhaxeeyay laakiin ibn Abdul Barr markuu ka hadlayay oo yiri arinkaasi markii Malik la weydiiyay maxaad ku jarxisay ninka la yiraahdo Muhammad ibn Ishaq wuxuu Hisham ibn Urwa baasaa ugu yiri markaasuu tacliiqi hada taqlid oo ku raacin weeye cilmi ma aham يعني فيري يعني سعادة تلك سعادة إقوان أو شيخ يجيبها خلافي هدو شيخي خلافي أنه خلافها يعني والله درية وح مشاكل هو وحصح معه أريك هذا مركز أرين لوبة هي وهي إن محن كل هذا لغفر صدق وحكوا عجائبة إن لو بيهرو إن اللي ده قف كاسي وقال أو قف كاسي إلى نحرسنا معه هذا أرين كاسي أرين عنده هذا كتير تمام وهي إن احتياط بنسوبس وأين نقول qofku iska tuur kelmadaas waad aragtay kelmadan cadiimka oo leeyahay ninka leeyahay maqayim al-jawziya oo leeyahay waxa arkaysaa qofka soo mutawarric ah xaraanta iyo waxyaalaha xun ee islaaliya musharu ilayhi bid-din walisanu yafri fi a'rad an-nas kan wax ka sheegaya arka arin khatar weeye walidaalika hadii kufriinta iyo qofkaas waa munaafiqna arin dhow ma aha waa ilaahay u naxariisan maayo حديثك صحيح وأدوه والله لا يغفر الله لك نكو كيري إلهي كو رافي مايو إلهينا كيري أكنت بي عالما أكنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار يعني أنا كاسي نولا إنه بقوي نولا إنه بقوي ونفتيسا إلى ليه استقى إيا اسك مسؤولة نور مسألة أيا هرتي لكن أن كعدو دارنا يو أيدعي كرت اذهبوا به إلى النار يعني أنا كاسي نولا إنه بقوي نولا إنه بقوي ونفتيسا إلى ليه استقى إيا اسك مسؤولة نور مسألة أيا هرتي لكن أن كعدو دارنا يو أيدعي كرتو إن أن وقتك لأقبته ويكمل هاي مسألة تدرج كمكذا الإصلاحنا يو ورنتي أي كتشرته مسألة مشاكل بين كتشره أي مسألة اللبان توقير العلماء ينادي كتشرته مسألة كلا وفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد مركا إنها هدي أن فرصك لها الله وقت كلام كدقنا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انت إنه بحضي رعاية وهي وحي هاي خلاص هي برجنا نتكلم habeenka muxaadaradu ay jirto ka qadarka ay nooga haray hadii su'aalo kooban oo doctorka aad weydiinaysan ay jiraan mawduucan ku khatimayna ku gabagabeynayna insha Allah su'aaluhu waa inaan iska noqon jaanta furan mawduucii sheekhu ka hadlayay ama shay muhiim oo diintaada iyo noloshaada saameynaya inaad weydiisaan insha Allah ta'ala
وهذا في ديار جرامين ولا قرار سكيستك وقت الواحد شاك سؤال شاك جزاك الله خيرا. موضوع مهم وراح نويدنا نظام الصحوي وصوات كتابس أبي كل بلاط الحلول بالباب ما كان تقدر تناسى شيء أي ما أخذ أما سلبياتك عن كهالني أي كم تهاي أمضة أمض كل جيدة oo loo baahan yahay in isku noqoto inaga ka bulsho ahaan oo ka ummad Soomaaliyeed ahaan waxa inoo dheer cilal runtii aan ummadaha kale aan kala duwanahay cilal badan baan la qabnaa oo bacd al-mafaahiim oo caamaha baa jira oo aan wadaagno anaga dadka kale laakiin inaga waxa inoo khaas laba arrimood oo shida ah mid weeye horta in wax la wadaago Soomaaliya ma taqaan Soomaaliya dhaqan ahaan ninku reer guuraa weeye meel buu dagaa jees weeye goorta rabuu guuraa goorta rabuu maxaan ku dhahaa dhaanka aadaa haddii ceelka la isugu tago oo ceelka la wadaagaaye qaar baa ragga taqaan oo ceelkuna haddii biyar yahay waa la isqaarin jiray oo kii hoose oo ceelka la wadaagaaye qaar baa ragga taqaan oo ceelkuna haddii biyar yahay waa la isqaarin jiray oo kii hoose bakti baa ka dhici jirtay waa waxa dowladnimada loo leeyahay sababtu waxa weeye aqliyada wax wadaaga Soomaaliya ma leh in wax la wadaago oo aniga adigu ay wax nagu wada filan yihiin arrintaas waa waxa weeye waxyaalaha aadka u shidada badan nuqdada labaad oo aan shidada yarayn waxa ka mid ah unsurka qabyaaladda oo Soomaaliya ay ku fidnaysan tahay oo haddii ay ku weyday wax tiro badan oo danaheedii ah ay dhici karto inay ku jirto waqtiyada ugu khatarta badnaa oo jiritaankeedu khatar ku jiro waxyaalaha keenay waa kamid arimahaas marka haddaan canaasirtaas ku aan ijmaaliyo waa iska taariikh dheer kama sheekayn karno waa dhici karta dad dhalinyarada ah inay buxuustu bixay ahaayeen maxaa sababaha keenay maxaa asara maxaan asal ahayn maxaa la aqbali karaa maxaa la aqbali karin waxaas waxa weeye waa homework u qaat oo idinku daraaseeya oo ninkii eed lahaa eedda saara oo ninkii ammaan lahaa ku ammaana taasi waa wax idinka idin yaal ama jiilka hadda dhalinyarada ah looga baahan yahay laakiin waxa muhiim ah oo dadka aan kula talinayna eedii dadka hore galay idinku mas'uul kama ahayn dhawarka ugu dhiganina oo ha oranina hebel baa iskhilaafay anoo iskhilaafayna waxa weeye arrinkaasi arrin mantiqiya ma ahan arrin sax ma ahan haddii ay dad khaldameen dadka ka dambeeya inay tii raacaan maahan laakiin asbaabo la fahmi karo oo waadixa bay ahaayeen wallahu a'lam saa'ilkan wuxuu leeyahay saxooduna waxa weeye cid kasta oo meedaanka laakiin asbaabo la fahmi karo oo waadixa bay ahaayeen wallahu a'lam saa'ilkan wuxuu leeyahay saxooduna waxa weeye cid kasta oo meedaanka ka shaqaynaysa iyagoo ka shaqaynaya biislaaxi naas dadka inay hagaajiyaan mise waa firqo khaasa ma leedahay calaamo lagu khaasa oo lagu garanayo bismillah saxawadatan waxaan ula jeednaa baraarugaasi muxuu ku salaysan yahay wuxuu ku salaysan yahay ummadatan waxba ka khaldamay wixii ka khaldamay loo saxo waxa ka khaldamay waxyaalo tiro badan ama ha noqoto xagga aqaaidka ama ha noqoto xagga akhlaaqda ama ha noqoto waxyaalo tiro badan ama ha noqoto siday u fikrayso ama ha noqoto mafaahiim tiro badan oo khaldan dadka arrintaas ku xil saaray oo aanan hebel iyo faarax iyo cali oranayn horta kuwaas sax la yiraahdo baraarugaas wixii ficil ha suubiyeen oo ummadda wax tara dadkaas oo dhan bay shamlinaysaa nintii maraha kaliya haysta ma jiro saa'ilkan isaguna wuxuu leeyahay Dr. Ahmed saxwada Soomaaliya khilaafka ka jira ma wax iyaga u gaar ahba mise waa mid lala qabo hadiisa la yimid wadaago maxaa laga qoray oo loo kaashan karaa khilaafkaas khilaafka dadka su'aashii aan uga jawaabay akh ay la mid tahay
khilaafka wax inoo gaarana waa jiraan oo inagu ummad waliba waxay leedahay nuqaad dacfi ah bay leedahay iyo nuqaad quwa ah ummad waliba marka wax inoo gaara waa jiraan waxaan la wadaagno saxwadaas caalamkana waa jiraan oo wadaca hadda waqtiga la joogo waa casr al-awlama oo waxa weeye afkaartu waxay u soo gudubtaa sida badeecadu u soo gudubto ayaa la isku dhaafsadaa saadarteed marka xawaajiz ma jiraan hadda waqtiga la joogo waa casr al-awlama oo waxa weeye afkaartu waxay u soo gudubtaa sida badeecadu u soo gudubto ayaa la isku dhaafsadaa saadarteed marka xawaajiz ma jiraan adduunka waxa ka jira oo dhan inay inaga jiraan way marka waxa loo khaasana waa jiraan saan u sheegay waxaan dadka la wadaagnana waa jiraan rasaa'il tira badan oo la qoray baa jira oo aan isa saxna ah oo dadka muslimiinta ay qoreen maadaama ana isma lahayn سائل كان يقول بريهان وحا صوماليا كبدا دلك شخصياتك لدلو iyadoo aan la cadayn sababta dadka dilaana ay diin u nisba sheegtaan yaa ku ogeysiiyo hortaadiga weeye dadka dilaynay saladaas xukunkeeda isagaa xukun ka gaaday saa'ilku markaa bal doctoorkaan uga baxaya insha allah بسم الله الرحمن هذا كجوابي ان شاء الله بسم الله الرحمن هذا كجوابي جوابتي انت اسويه سيدا مثلا انا هي شاكينيا waxa weeye hadii dil dhaco ama jariima dhacdo ama wax criminal haday dhacaan in la cafiyo in la caleen saarto sababtu xaqada ku dhunta saas dadku hadaad harka booliska ka shaqeyn jiray ma aqaan inay ku jiraan hadaad booliska ka shaqeyn jiray ku jiraan arrin haday dhacdo jariima ah hebel baadilay ama qolo hebla dishay laguma ordo ilaa arrinta la baaro qasad dhacday baa idin sheegaya gaal ka dhacday waagi dawladdu jirtay gabar yar baa mas'uul lagu riday gabar yar oo markaa dhalatay baa mas'uul lagu riday oo shaqo-mulahaan ayaa mas'uulshii lagu riday nimankii baaritaanka ee waddanka markaa joogsan iyo mid aan isdhaafino inaguna waxayna iska wadano saasaa la siiri waxay ka bilaabeen marka daa'iradii bay ka bilaabeen markaas wax baaraysay gabadhii iyo ninkii oo jeebkaysan baa diyaar la saar marka sideeda hadda inaga dawlad la'aan baa dhacday sida wax loo baaro ma sahlana xaqa in la helo ma sahlana laakiin hal baa idin sheegaya dhig islaameed ma qarsoomi doono ma garata dhig islaameed ma qarsoomi doono waxaan la yaabaa nin baan weydiiyey waxaan hebel yaa dilay waa hore oo arrin siyaasi ah hebel yaa dilay baan ku yidhi hebel baa lagu tuhmayaa markaasuu dhig islaameed ma qarsoomo 40 sano ka hor inaan faataxada u maray maanta aan ajira ku duuban baan arkay oo leeyahay ninkaasi ku maqan yahay ninkaasi ku maqan yahay marka wax qarsooma ma waa dhici kartaa in dadku jecel yihiin hadii bay la ogaado maanta aan ajira ku duuban baan arkay oo leeyahay ninkaasi ku maqan yahay ninkaasi ku maqan yahay marka wax qarsooma ma waa dhici kartaa in dadku jecel yihiin hadii bay la ogaado oo maanta la ogaado abri la ogaado waa dhici kartaa in la jecel yahay laakiin arrinkaas waxa weeye arrin hadda anu adawaadkeedii aan hayo iyo maxaan ku yiraahdaa ka jawaabid aan ka jawaabi karo ma jirto marka arrinkaasi cilmuk waxa la weydiiyay shacbiga waxa la weydiiyay ibliis naagtiisu magaceed waa imaam cadiim oo la yaqaan markaasuu yidhi ذاك عرس لم أشهده أنا أراسكاس كما قيم قلين فيه أنا أراسكاس مركة أنا أراسكاس كما قيم قلين والله أعلم سائل كان يقول لي هدي قصة محكفرة وعن شيء وحكس كصح إيا خلط ضاء محمد يقول مقنصة أراسكاس كما قيم قلين والله أعلم سائل كان يقول لي هدي قصة محكفرة وعن شيء وحكس كصح إيا خلط ضاء محمد يقول مقنصة علماء واسردين جرتي قديما وحديثا ورق اسرديي رق اسكو جعل بي اهايين وهذا رقتينو امام مالك وحا وشيخ وياهي امام الشافعي
camalu ahli lmadiina yaa radiyey shaafici baa radiyey imaam shaaficina wuxuu odhan jiray idaa dukira arijaalu famaliku najm haddii rag la sheego maalik waa xidig ayuu odhan jiray imaam axmed masaa'il badan buu ku khilaafay imaam shaafici wuxuuna odhan jiray kana shaaficiyu kaashamsi lidunya wakaalcaafiyati linnaas saasuu odhan jiray yani imaam shaafici saasoo kale u ahaa ummadda u ahaa waad arkaysaa marka horta radigu ceeb ma ahan laakiin waxaa ah inaad bicilmin wacadlin aad wax ku radidid horta inaad waxa kan aad ka warqabtid oo aad og tahay oo aad cilmi u leedahay iyo inaad cadaalad suubisid mararka qaarkood qofku waxaa dhici karta shaksiga inaad taagtid oo aad tidhaahdo hebel iyo hebel oo wax khayr laawaa weeye waa kan weeye waa adiga masalada layskugu hayo masalada laysku hayo horta ka hadal ninkaan iska daa masalada laysku hayo horta bal ka hadal marka masaladaas ay saafi ku noqoto marka hala gaaro ma garatay wuxuu oran jiray cabdiraxmaan sarfiiri raxmatullahi calayhi bugta raac laba rabee masalada meesha la iskaga hayaa la tagaa yani waa taxriir maxalli nisaac yani waxa horta laisku khilaafsan yahay horta hal caddeeyo laakiin waa la isradin karaa radigu qadaada ma leh qofkuna waa inuu si cad sadri leeyahay haddaba arkaysaa imaam ibn xasm inuu isagu isradiyey isaga lisa isradiyey kaloo arkay axmed shaakir raxmatullahi calayhi markii uu taxaqiijiyey kitaab ashicri washucaraa libni qutayba waxaa naqdiyey ninkii loodhan jiray say saqar say saqar nin adag buu ahaa raxmatullahi calayhi annaga macallin makuu ka noqday ninkaa markuu radiyey radigiisii buu ku tasdiiriyey kitaabkiisa dabcadii labaad wuxuu yidhi kelmadii uu yidhi ninka la yidhaahdo say saqar kitaabkayga muqadamaan uga dhigahaya muqadam uga dhigay isaguna hadii waa ka jawaabay waxyaalaha qaarkood laakiin haddii waxay ku tusinaysaa inuu yahay nin isku kalsoon oo sacad sadri qaba waxaan kaloo aad uga helay mutanabbi maca almutanabbi waxaa qoray mutanabbi waxaa qoray ninka la yidhaahdo maxamuud shaakir kitaabkaa markuu qoray waxaa radiyey nin la yidhahdo saciid afghani oo caalimahu shaam ah naqdigaas iyo ruduuddii layska qoray kitaabkiisa markuu dabcaynayo u dambeeyey wuu ku soo qoray maxamuud shaakir oo wuxuu qorahayaa maxaan ku ihahdaa isaga iyo wuxuu qoray waxaa radiyey nin la yidhahdo saciid afghani oo caalimahu shaam ah naqdigaas iyo ruduuddii layska qoray kitaabkiisa markuu dabcaynayo u dambeeyey wuu ku soo qoray maxamuud shaakir oo wuxuu qorahayaa maxaan ku ihahdaa isaga iyo wixii dhex maray saciid afghani kitaabka ku qoranta marka ceeb ma ahan in la isradiyo laakiin bicadlin iyo bicilmin halaisku radiyo su-aalahan saddexdaan ku khatimaya insha allahu tacaala su-aal dambena ma jirto su-aashan wuxuu leeyahay maadaama saxwada khilaaf badani uu ka jiro xalku muxuu yahay sheekh bismi illahi raxmaan raxiim xalku waxa weeye horta marka hore in la tashkhiisiyo asbaabta laysku hayo maxay tahay waxaa dhici karta mararka qaarkood asbaabtii inaan la garanayn horta asbaabta laysku waafaqo qofka markuu jiran yahay laysku hayo maxay tahay waxaa dhici karta mararka qaarkood asbaabtii inaan la garanayn horta asbaabta laysku waafaqo qofka markuu jiran yahay daawo lama siiyo ilaa la cudurka uu hayo cudurkuu yahay sangu miyuu ahaa ninkii tiriyey heesta ah jirada dameerka fardaha ku dhacda haddii laga gubo dameer ku dawoobaya yani maxaan ku idhaahdaa haddii aan waxa la helin ciladeeda dee horta lama heli karo daawadeeda lama heli karo haddii laakiin cilada la helo markaa kadib waxaa la raadin karaa daawo la raadin karaa marka ugu horeysa horta bal hala wada hadlo oo cilalka halaisla soo dhaweeyo hal qofna uma taale majmuucuna bay u taalla haddii ay culimadii iskhilaafsan yihiin sidee baa dhalinyaradii loo waraabin karaa ka ahaan jiray waagi ingiriiska markaasaa waxaa la yidhaahdaa maanta reer hebel baa geed kala qaaday iska daaya anaa ogo ingiriis baa ka dambeeya oran jir anaa ka warqaba arrinkaas ingiriis baa ka dambeeya horta in loo saaro tabicaadka dadka kale waa nooc huruub min almas-uuliya yani nadariyaة muamara in la yidhahdo wax waliba waxa ka dambeeya baa halkaa ii fadhida oo ibaabi'inaysa horta adigu maqaangaar baadan ahayn
عقلي أيام كوف اللين أديك محاك هاسي هذا الصومالي هذا تلاهيد محاوى حكدم جاية ومشكلة حسيتها والله وانا وقت شديد كلية وانا وقت شديد يعني وحلقة وسهلا تبعات ماله مسوينتي تبعات ماله يعني قفوا عينيا نفتيسة أنا بلايا أمارتي وكل دلائي بلا يدريتها جن لكن إنه يسوي إيد ليه هي مسوينتي تبعات ماله يعني قفوا عينيا نفتيسة أنا بلايا أمارتي وكل دلائي بلا يدريتها جن لكن إنه يسوي إيد ليه هي وانتو ايد ليه تو اعترافه انت ضدك كلي اي ليهين حجم يراسيو حق انت هو يعني waxa weeye adu eeda aad leedahay inta aad leedahay qiro dadka kale inta leeyahay soo baxayaan laakiin hada wax waliba tiraahdeen siraari wajahada kala si waxay la tahay waa kowsay hal si loo helo waa adagta su'aashani waa su'aal mawduuca ka baxsan oo su'aal fiqhi ah فقهاء وحيرته وهو بقوة جانته مركع وحوليه هاي سائل كان يصدح معلومه وحاني الله وقصلقي أما قريسكي صدح بري صلاة ضيغي أنت كان يكوح جنابدي كان يصدح معلومه وحاني الله وقصلقي أما قريسكي صدح بري صلاة ضيغي أنت كان يكوح جنابدي صدح معلومات كليئة وحدد لما هني وسؤالين كانت صدح معلومات سؤالي واجرت مسائل قفك دون وحان علم الله صلاة سبحضه إن آن لون نقونين علماء وحا قوضد محققين هيا قووا لدي سنكرين لكن خروجا على الخلاف هذا صدح بري وحبضا معنا دينا وقت دير هين وسؤالين كرتها والله أعلم هذا ركز كل رقم يصير قول كودنا وحوي لا بأس والله أعلم معنا وحوي هدي قفكو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا وعام مقالتي وحوي والله في أمد وحي أي قفتي أما أي صلاة الوقتية وضح مقالت وكبح ماذا الله ونغدب على الذين يستمعون القول فيتبعون جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم والسلام عليكم.